السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كان زدي تي في 99 كسو دوادا عشركيني اللباد 8 part of speech oo inoo socday. cashirkeena labaad wuxuu ku saabsan yahay pronoun waa cashirkeeni labaad 8 part of speech. kolka idinkuna hanaga iloobina subscribe haddaad channelka ku cusub tahay subscribe noo saaro gambaleelkana furo si uu kuu soo gaaro video walba oo soo gelino aadna noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada. kolka aynu guda galno cashirkeeni ahaa 8 part of speech xalqadiisii labaad pronoun oo ah xalqada labaad ee 8 part of speech. Pronoun is a word. Pronounku waa eray that kaas ama kaasoo we use aan u isticmaalayno place of noun booskii nounka. Pronoun saan naqaanaba waa magacuyaal. Pronoun is a word. Pronounku waa eray that we use kaasoo nu isticmaalno place of noun goobtii magaca. Example haddaba tusaale aan gudagalno. Example tusaale a little girl gabadhii yarayd spoke sweetly si macaan ayay ula hadashay to the stranger ninkii ajnabiga ahaa. gabadhii yarayd si macaan ayay ula hadashay ninkii ajnabiga ahaa. She gave him water to drink. waxay siisay biyo si uu u cabo. She gave him waxay siisay water biyo to drink si uu u cabo. Pronoun is a word that we use place of noun. Pronounku ama magacyaalku waa eray that we use kaasoo nu isticmaalno place of noun goobtii ama positionkii nounka. Example tusaale a little girl spoke sweetly to the stranger. gabadhii yarayd si macaan ayay ula hadashay ninkii ajnabiga ahaa. gabadhii yarayd si macaan ayay ula hadashay ninkii ajnabi ahaa. stranger badana waxaa loo isticmaalaa nin ajnabiya ama ruuxaadan aqoon u lahayn oo markaa aan kugu horeyso. She gave him a water waxay siisay biyo to drink si uu cabo. Other pronouns commons are pronounyo kale oo caan ah. I waa pronoun waa aniga waa caan. We waa pronoun oo inaga iyadna waa caan oo waxay ku jirtaa pronounka you sidoo kale waa he sidoo kale waa isaga she iyada they iyaga it iyo wixii aan naf ku jirno loo isticmaalo ama aduu wixii aan bilaadan hayn ayaa it loo isticmaalaa. Me aniga as inaga them iyaga oo they oo ah object. They waa subject iyada objectiyana waa them etc iyo wixii lamid ah. imika xaggan pronoun maxay noogu jira the little girl spoke sweetly to the stranger. imika gabadhii yarayd si macaan ayay ula hadashay ninka ajnabiga. waxaa imika ah pronoun little girl maadaama ay calaamad u tahay ruuxii ficilka sameeyey. a little girl gabadhii yarayd gabadha yar waayo ama Amina Faadumo waa little girl waa pronoun oo u jooga little girl. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.